Sunshine Media. Subscribe for more. نبي محمد عليه الصلاة والسلام تصلى يا شيخ مقلسي من رجيني إليك متى نندل اللي يرابا ويمي نكاد اللي يرادا بيزني دي سارك انتو نبي محمد ويمي وحيري أنا قو وحان رباه إن زناد الله يعقل هذا أنا قال الله يفسح أبو لي سوق أنجلية عدة وكله يوا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وهذا مركز الصحابة مقشي ويدقالين ويماقين وحكو الله يا بلا رقبان ليلي nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam udnu war soo dhoweeya soo dhowow buu ku yidhi wuu soo dhowaado nabigu hor fadhiistay dabeetana nabigu ma dagaalin ma maagin waana qanciye usluub latiifanna waxbuu ugu sheegay waxaan ku weydiiyey buu yidhi hooyadaa miyaad la jeceshay hooyadaa inay zinaysato miyaad jeceshay in dadku maqlo wuxuu yidhi maya hooyaday lama rabo wuxuu weydiiyey wuxuu nabigu ku yidhi dee hadda dadka kalena hooyooyinkood lama rabaan inantaada habaryarta eedada dumar intii ku xigay ayuu nabigu weydiiyey midaad zina la jeceshay ma jirtaa mid walba may buu yidhi nabiguna wuxuu tilmaamay intaasoo dhammi dad unbay iyana eedda iyo habaryar iyo inantiisii yihin dadkaas intaa kadib ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam taabtay wiilka yar laabta gacanta ka saaray dabeetana wuu u duceeyey isagoo leh اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه إلهي ودنبقي سناف قلبي سنو طاهره فرجي سنو إلى بويري حديث علماء دوريني سكا إمام أحمد وحديث صحيح وحيلين ويل كاسي دب دمر وما إيجين يعني ويل كان يسقو حليمي إن لا أقراد الزنا نبقو كما قايلين مماغين ugama bilaabin zinadu waa xaaraane waxaa doonaysa naartaa lagu galaa wuxuu uga bilaabay inuu u caqli celiyo si qabowna wax ugu sheego waxaan weedhaa u leeyahay marka gaaladii la yidhi habaar layma soo dirin waa kii nebigu yidhi anigu mid lacaana ee waxaa lay soo diray naxariis islaamku horta dhammaantii waa naxariis islaamku dhammaantii waa naxariis آيات بدن وقرآن بالله يدكو أخري حديث كورميسا وحلقة يا بدتك بدينا يدهدان وجراحة كورنا قصاصته يدلك يقعن قوينته يوحد يدنا نحرسنا كمت مثال بقصينا يوحي لمتهي طبيبكو هدين لقو داوية لقا قوستم حال غبتاك عليه إن مدين لقو مريو لقو قالوه وعد هلبكاga ka mid dabada loo tuuro soocaga ma طبيبك جراحي محوك la sameeyo surgery-gu waa nin midisita oo jidhkaaga midi marinaya oo dabeetana wasla jidhkaaga ka mid intuu jaro tuuraya wasladan maxaa loo tuuray waxay gaadhay baa la leeyahay xad aan la islaaxin karin maxaad u aqbashay in midida lagugu jeexo maslaxa ka weyn baa ku xidhan fakadalik حدود اللي شيء إسلام كون بواعي كاس مصالح كواوينا وكحرم تهاي وحنا الله بعض برشطنا اللي طهره السؤال شقول يا إن سويدين ناو حيثاي إسلام كي قرني إنه يهي نحرس نبي محمد نقرني عليه الصلاة والسلام أخلاق دي سيادة كان كي سوينا يهي الرفق إنه وحد مريو هذا كيف نقدم الإسلام للناس دك سين الدين قاسين ما ينقول دقالينا ما ينقول لينينا ما ينقول ماغينا مايا نبي محمد وحليه من يحرم الرفقة يحرم الخير ننكي دمرنتي يد بعسنيد اللي قواي خير بكاسي ما وطبو نبولي هو خير واي دبع سنانتو دين تيكمت عنفقة يحددة يدقالك يعرضة يقلف سنانت يقلب انققنا دين تكمام بدها دبع سنيد يد مرنت وحي كدشان اخلاق وناقه وامره كدشا سيدا اوجد اي حتى كوي نبي لعيتمي عيده وليمه اما خبارك وليمي نبي سيدا ولما دغمن اري في عمبو كيري سغو وحينا ردينيا يهودي كتب السلام عليكم غيري كركاغا هاتو عائشه وي عيتنت او waxay tiri وعليكم اللعنه والسلام idinka geeri iyo nacdaliba korkiina haato
nebigu wuxuu ku yidhi caaishaay to af xun ha noqonin oo miyaanad maqlin bay tidhi ilaahay rasuulkiisa waxay ku hadlayeen nebigu wuxuu yidhi waan maqlay waanan radiyo wa calaykum un baan idhi ilaahay aniga wuu ii aqbalaya iyaga toodana lay aqbali maayo xataa nebigu kuwii caayey markuu rabay inuu iska radiyo erayada xun afkiisa ma soo marine wa calaykum buu ku goobsaday intaasuu ku gaabiyey nebi maxamedna wuxuu leeyay calayh salaatu wasalaam ilaahay wuxuu jecel yahay rifqiga waxaanu ku bixiyaa waxaanu ku bixinin qalbi engeg iyo engeginaad haddaba waxaan rabaa un inaan soo koobo warkao dhan oo aan idiin sheego masaa'ilka soo socda dadka maamulka haya siyaasiyiinta ah oday dhaqameedada ah a'immada masaajidda ah dadka xukun u haya waxay leenahay nebi maxamed wuxuu yidhi xadiiska saxiixu muslim ku yaalla allahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh ilaahayow ummaddayda ninka wax maamula u qabta ee ku adkeeya ilaahu isagana ku adkee buu nebigu yidhi ninkii u dabcana waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihi ilaahu kii u dhimriyana u dhimri adigu dooro in habaarka nebi maxamed kugu dhaco iyo in ducada nebi maxamed kugu dhacdo adaa doorashada leh nebi maxamed waanu habaartamay waanu duceeyey wuu habaaray cidda maamul ummad u haysa madax ha noqoto madax dhaqameed kuwa siyaasadeed kuwa diineed a'immo cidday doontaba ha noqoto waxaad ku weydo samo iyo dabacsanaanna xoog laguma helo nebigu wuxuu leeyahy rifqigu dabacsanidu shay ma lagula yimaado ilaa iyo zaana wuu qurxiyaa shayna dabacsanida lagama saaro ilaa iyo shaana wuu ceebeeyaa wuu xumeeyaa ciddii dabacsanaan la siiyey dheeftiisaa khayr laga siiyey ciddii dabacsanida weydayna khayr waa waayey buu nebigu yidhi xad buu nebigu ka gaadhay dabacsanida safar iyadoo lagu jiro ayaa nin dhallinyaroo saxaabiyo cod macaana oo awr hoggaaminaya dumar saaran yihiin ayaa awrtu hees ugu dhuftay nin aad u cod macaanna uu ahaa xoolaha waxaa la yaqaanaa heesaha loo qaado way bartaan marka la carraabinayo mid baa loo qaadaa marka la hoggaaminayo mid baa loo qaadaa marka la waraabinayo mid baa loo qaadaa qof cod macaani hadduu gela u heeso isagoo hoggaanka u haya awrtu way dheeraysaa iyadoo dhegaysanaysa qofka kan saxaabi la yidhaahda anjasha oo aad u cod macaana ayaa hees ugu dhuftay awrtuu hoggaaminayey dabeetana awrtii baa dheeraysay oo xoog u dheeraysay dumarkii dusha ka saaraa baa markaa gelgelmay awrta saaraa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi irfuq yaa anjasha wayxak bilqawaariir ruwaydak anjasha sawqaka bilqawaariir anjashow dumarka dhowr buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam quraaradaha jajabinin isagoo nebigu u tilmaamaya laa taksir ilqawaariir yacni nebi maxamed wuxuu gaadhay xad naxariistiisu awrkaa la hoggaaminayo qofka saaran inaan la gelgelin uu rabo ee si fiican loo kaxeeyo waxaan ku soo koobayaa leeyahay qoys kasta oo dhisan hadday dhimrinta iyo naxariista isticmaalaan way jirayaan haddii islaantu ay kakanaato qaylo badnaato ama odaygu askari uu noqdo marka uu soo galo awaamirun bixiyo yararku derbiyada kala galaan qofka meel ku dhuunto sidii kornayl guriga soo galay hadday saa noqoto nebigu wuxuu leeyahy idaa araada allahu biahli beytin khayra adkhala calayhim alrifqa baa nebigu yidhi guri haddii ilaahay khayr la doono dabacsaniduu geliyaabaa ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam guri haddii khayr lala doono